وقوم بهت كور حد ما شاء الله ويل في عمباتين إن الدون وحمية على آخرها الله شقيسته 10 ayaa wuxuu ka bilaabanayaa masaajidka Abu Hurayra casirkii markii la gaaro soo xaadira masjidkii Abu Hurayra waxaan ku xaadirnay casir walba dhowr kitaab aan ku bartay kitaabka usul salaata khud aqeeda aan ku bartay tawxiidka والله بالبرع dadka dhan adka bari qaadanaysid waxaan ku bartay masaajidka بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وحاوم لنا قف كستوية قانا إن يهوديين قوم بهت أرنتاس نحا كما قاتل فري سيدنا عبد الله بن سلام وكمدها حبر من أحبار اليهود وحير إن اليهود قوم بهت وبالفعل قف كما أنت واقع على صعده أرنتاس هندي شيء وكارك كرات سي واضحة وحان arki karna maanta yahuuda in ay mar walba isku daynayaan in ay suuro xumeeyaan in ay tashwiihiyaan in ay xaqaa'iqda dabagadiyaan mar walba waxyaabo faalis ay la imaadaan ya akhbaar oo been ah sawir fake ah كل هذا لأجل وحواي تشويه إن أي تشويهيان أي صورة حمايان ولا لهن غير فلسطين أي ده هندت كان وادت أو أرجح سوين أنا أرجح سايا لدرونا وهذا كذب وافتراء وين وبين وين dadka argixisada dhabta ah waxa waa yahuudaas ay maalinkaas ay xasuuqooyin walaalahan reer Falastiin weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u gargaaro sadaka gudbo maanta waxa u jeednaa qaar suufiyo mar labaad ku celinaya qaar suufiyo ayaa leeyahay suufiyadu kulligood ma aha qaar kood weeyaan khaasatan kuwa xaq jirka ah ghullaata suufiya waxaan ku aragnaa dhaqankii yahuuda in ay ku been abuurtaan khasmigoodii in ay suuro xumeeyaan خصمي قف كسته أو كسر هرجيدو وهو وصورة حمانايان وتشويهنايان كل هذا وهو لنصرة إن أي نصريان مذهب كوري وحيكون نصريانا وهو بين أبورد أي يكون نصريانايان هذا كان أركيسين كريبو سوقاتي نن أوله يعني مساجد أبو هريرة أياه وحكوا سوقاتي دروس باكو سوقاتي كتب باكو سو أخريستي وحكوا دقي أو ضدك أو دقي إن مساجد كأبو هريرة كويا لمقديشو أيو ضدك أو دقي markoo sida arkayseen wuxuu soo qaatay loogihii masaajidka Abu Hurayra ee ku yaalo Muqdisho ayuu soo qaatay falaaru ku taag wuxuu leeyahay waa masaajidkan waay ninkan wuxuu ku soo akhristay waxa masaajidkan weeyaan korna wuxuu ku soo qoray masaajidka Abu Hurayra inuu yahay meel oo dadka afkaaraha khawaarijtu lagu baro wahada kulluhu kadib waa been abuurad cad weeyaan laana ninkan asaga soo qaatay masaajidka Abu Hurayra ee ku yaalo Muqdisho ma baahan meesha oo wax ku soo akhristay لأن قوت أسرع جوجي ما بأهم بمقديش وما بأهم واحد انتصينا يا مقطع أصلي يا انتصينا إذن كدقيه نكون مقلسين ماركو كهد لا مساجد كأبو هريرة حجود جوجي إذن كأوجانيسين بالكاري على الدعوة أنا أركي للتعجيبشان والله يابن باننا صاحب النهاي أو كسوجي الدجان كبران بفكرة يقول لي يعني وحوريني صاحب وحمكوش جاها waxaan ku hayaa wali arin muhiim ah waa halka aga biiri doono mashruuca ururka diiniga xarakatu shabaab wal mujaahidiin waxaan aadeynaa buuri baran markaan aadnay maalinta ugu horeysay markaan tagnay waalidiidi inaan soo galo amar la'aan ninka telefoon baa la soo siiyay waxa la kula socday hebel baa ila socda markaas ayaa meesha laga aasaasaya waa socdaa laakiin sida uma tiro badnaa waa socdaa siyaadu u socdaa magaalada Boosaaso wuxuu ka dhigay waxaan caadi ahayn laakiin anaga markaa waa ku cusubnahay aniga wiilkaas sanadkii 2008 baan ku biiray wiilkii haddaan tagnay baran maxaa shiro alla wiilkii baran haddaan tagnay wuxuu yiri saaxiib ma soo gali karnaa telefoon buu naga hormariyay telefoonkii baa xal lahay may ma soo gali kartay ninkaas inuu amar qaada in kale horta hala tijaabiyo waxaan ku dhahay saaxiibga cali ani meesha ma istaagi karo sababtu maxay tahay cidna kama aqaan baran gidaar cidlaan ma istaagi karo
وعي وحيره هاي مسوقل كنا ورنك هدو دود بدي هاي أو سيد صبر بالهن نجعل والله برتين كسوق الله بني معنا اللي بعد هذا والتشكيلي دور معنا مركل الجوي إسلامكم استدي كم التهيب عن مقنع ماشي وحن كل مي نن لو يخان مقال بوصص عنك هاي شيخ عثمان ومساجده وأروج جري البصير حتى أسقى دسي لعجها مقالدو كأروج جري وهالكا كجرتي أنت كلوا جرم واعي علماء وين السود وين سيف عن وين نمر تصورين واحد هن كورة حد ما شاء الله ويلا في عن باتين إن الدون وحمية على آخر هلا شقيسته 10 ayaa wuxuu ka bilaabanayaa masaajidka Abu Hurayra casirkii markii la gaaro soo xaadira arba markaa joognaa wax hadala ma jiro kadibna bartaan ka soo kala wareegnay masjidkii Abu Hurayra waxaan ku xaadirnay casir walba dhowr kitaab aan ku bartay kitaabka usul salaasa nuur al-yaqin khud aqeeda كبرت توحيدك والله بالبرع دتك أنا أتك بريق هذا نسيت فما كبرتي مساجدك مكان كبرتي مدة كذب إسلا الله بدكون يسديدي بان سيف عم بان كتابك وحن كيني إن دتك أنا هو عليه أي كان أي لقاطان عشردي هراء عشردي دم ماشي دروس أنا عادي هم باك صوب حدي وحكلا اللي شيء مايو يمد لح بلاد تضرب بلاد أدو وحن هاي أرضي وحبرنا يسقى كمت عادتك ضد وحبري كرا كدبنا أي كحلو صدونا كرا إن كمت نقضه horta marka koowaad waxa ogaanay ninkan in uu joogay Puntland ee ma joogin Muqdisho marka su'aasha mudan in la isweydiiyo waxa waaye war Soomaaliya dan ma hal masaajid kali ayaa ku yaalo oo la dhaho Abu Hurayra jawaabta qat'an waa maya waaye masaajid Abu Hurayra la dhahayo meel kasto ku yaala wuxuu ku yaala Boosaaso ku yaala Qardho ku yaala Gaalkacyo ku yaala meel kasta Soomaaliya ka tagtid waxa helaysa masaajid la dhahayo Abu Hurayra marka ninkan waad aragteen wuxuu ku been abuurtay masaajidka Abu Hurayra ee ku yaalo Muqdisho أن نكان وحوجه بوتلان بوجوي مركز مساجد كاسي وحواي ومساجد أوكيالو بوتلان واي تنا وحنا تصنيسا مساجد أبو هريرة أوكيالو مقديشو إن أو وحيابهان بري كيهي ليش؟ لأن قلادان هدي وحد دتك تصنايو فعلا مساجد أبو هريرة أوكيالو مقديشو إن أو دتك برايو أفكارتا خوارجتا أفكارتا أرجحسدا ده وصوب بندق لهين لماذا؟ لأن مساجد أبو هريرة ومسجد أو عاهويا فيسبوك بيليهين بيج بيليهين مالين كستنا وحالا قصو دي وحواي دروس أو ماشاسي كسو بحاوي مساجد كاسي إلهي خير بدن هسيو علماء ميساس جوغان جهد وين أي أمد صوماليات وهايان واداونا وعلصعنا دروس تاسي مالين كستا وحواي وكفا إدي سنة يا تفسير حديث علوم فربضن يا ماشا لقصو باهية مركا هدي قولادان وح كوهيسان لهايان أما وح عدينايو مساجد كاسي إن ضدك إن أفكارها أرجحسها إيه خوارجت الغبرة ده وصوب بندق لهين وحصل قاضن لهين علماء إيكو إليه ضدك ديج مسلمين تا وبناية هاي ضدك هلا دلو ضدك هلا لايو ضدك هلا قرحيو ده وكان لهين لكن بحي أديك سدين وحواي بين عبورة قف أو نوعا أو كلاهن يعني واحد دين وأهبة أصلا إن أو خصم يسكو بين عبورته إن أو مذهب كيسكو بين أو كل صغير إمام الشافعينا وحلاقها إنه ضحي أقبل وحأقبلها يا بويري شهادة أهل الأهواء شهادته دي وأقبلها يا بويري إلا خطابية ذا موية كم يديهن رافضة ده ليش؟ لأنه وحاب الدين فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم وحاب الدين إن أي بين اسكو نصريا إيكو بين أبورتان مخالفين تودي وارن عادي ويا marka shahaadadu lama aqbalay buu leeyahay Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala midda kale suufigan in oo arintan kas u sameeyay waxa daliil u ah hadal muhiim ay meesha ku jiray uu ka jaray 10 ayaa wuxuu ka bilaabanayaa masaajidka Abu Hurayra casirkii markii la gaaro soo xaadira
masjidkii Abu Hurairah waxaan ku xaadirnay casr walba ninka waraysiga ka qaadayay ayuu wuxuu weydiiyay meesha ay joogeen xilligaasi laana markuu soo hadal qaaday masaajidka Abu Hurairah ayaa taakiid ahaan u weydiiyay baran baa joogtay ma markaas uu yiri ha baran baa joognay cashar ayaa wuxuu ka bilaabanayaa masaajidka Abu Hurairah casrkii markii la gaaro soo xaadira baran baa markaa joognaa wax hadala ma jiro kadibna bartaan ka soo kala wareegnay masjidkii Abu Hurairah waxaan ku xaadirnay casr walba suufigan khaa'inka muxuu sameeyay hadalkaasi uu ka jaray sababtu ugu jaray waa maxay laana hadduu ku dhaafi lahaa beentiisii ayaa banaanka soo bixi lahayd dadka way ogaan lahaayeen goobta in ay ahayd Puntland sidoo kale waxaa maqalnay ninka wuxuu sheegay 3 kutub ayuu sheegay wuxuu sheegay usul الثلاث للشيخ محمد عبد الوهاب كتاب كلام نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري كتاب كسدحنا واخذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة للشيخ محمد بن جميل دور كتاب أن كبرتي كتابك أصول الثلاثة نور اليقين خذ عقيدة صوفيان خاين كم حسمي كتاب نور اليقين هو كجري دور كتاب أن كبرتي كتابك أصول الثلاثة خذ عقيدة صابته وقدر نوام حي لأن نور اليقين صوفيا نفط الكودي ويا أخرستان إذن حجدي أياكو قدوم من لهاد بأصلا لأن أيكم حليهن وعليهن كتبتان خذ عقيدتك إيو أصول الثلاثة إيو كتبتك الوحيليهن وحواي أرجح صدا أيا أخرستو إذن كان وا أخرستين إذن كوحواي وحنبارسنتين يا أفكارها أرجح صدا أيا حنبارسنتين أو عليه كتبتان وهي صار أرجح صدا صار طيب نفس يا حجة ودي هذا أديك سنو يا نفس الحجة حتى ضمنه تدينك حتى وحواي نور اليقين أيا أخرستين أرجح صدا نور اليقين أيا أخرستان إذن كوحواي حنبارسنتين أفكارها أرجح صدا أيا حنبارسنتين أما قف قال هدو كوي ما دو كله أرجح صدا وحواي وحي أخرستان قرآن كأيا أخرستان وحي أديك سلام آيات القرآن أيا أديك سلام كون هدو كله دوا مشكلة دوا حواي وقرآن كواي ما هو جواب لك حديلك مية قرآن كوح مشكلة ما قبل يا مشكلة دوا حواي قليها سي أرجح صدا ويان فهم كودي غلطان واي آياتها سي غلطان أيو أديك سنايان ميل غلطان أديك عيان واي آيات دهسة صح نعم إذن كذلك الحال وحالينا هي كتبتان أصول الثلاثة إيو خذ عقيدتك أي وهو يدد كان أيا فهم كي كقلوع مي وفهم كودي غلطان واي مشكلة دا معها كتب تاسي لأن كتب تاسي كما قرنا ليقى مسلم كوا حلال ويا مسلمين توالين كرا ليقى دو بنايا هاي هلا قرح وحاسدان كما قرنا كتب تاسي إيو دad ka dhan in la wada gaaleysiyo ama in lagu xukumo inay wada gaale yihiin arrintaasi kuma qorno kutubtan laakiin gaaleysiin hadda laga hadlaayo iyo quluwiga de horeyna usoo bandhignee waxa waaye aragtidaasi waxaa qaba waxa waaye suufiyada qulaada xag jirka ah kuwaas weeyaan kuwa dadka takfiiriyo waxayba aaminsan yihiin ya ahlu sunna wal jamaaca dadka ay u yaqaan ay leeyihiin wahaabiyo waxay leeyihiin waa wada gaalo weyn qaarkood ayaa soo bandhignay iyagoo hadalkaasi ku hadlaayaan waxaan kitaab jaamaca ku marayaa in Maxamed Cabdul Wahaab iyo culimada tawxiid ka faafisa balse isagu u yaqaan wahaabiyada aysan wax iimaan ah lahayn maxaa Cabdul Wahaab waxa had iyo goor magaciisa aan u sheego waxay tahay inuu soo qof aan iimaan ahayn la ogaado dad baa wax u yaqaan Sheikhul Islaam xaqiiqa waxaan kitaab jaamaca ugu mari karaa inuu soo wax iimaan lahayn عدي الرعدو عقيدتي كوداي ستانا ايسن اسلامك كميد ahayn عدي الرعدو عقيدتي كوداي ستانا ايسن اسلامك كميد ahayn ani waxa rumaysanahay kuwa qulaada ee xaq jirka ah maanta haday hub heli lahaayeen waxay baabi'in lahaayeen ahlu sunna wal jamaa dhamaantoodii dhulkay dhigi lahaayeen laakiin wax waaye hub ma haystaan ani waxa dhihi lahaa dawladda arintan ha ka fiirsato kuwaasi qulaadaasi ah ha laga ilaaliyo hubka sida muuqaalkan oo uu leeyahay Axmed Samatar oo xitaa ku takfiirinayo caruurta iyo jiilka mustaqbalka madrasa wahaabiyo ka soo baxay walaa yalidu illa faajiran kafaran wax ay saasayn dhalim haya hadallada kale ee ka soo baxa culimada dariiqooyinka isla markaana xambaarsan kicinta bulshooyinka waxa ka mid ah muuqaalkan oo laga duubay Sheekh Muxidiin Ayaanle waxa uu ku sheegayaa
in dowladihii soo maray Soomaaliya 20 sano ugu dambeysay dhammaantood ay ahaayeen wahaabiyo. waddankan waa waddan wahaabiyo ay haddana gacanta ku hayso meelo badanna ay kaga jidho mustaqbalka soo socdana inay ku sii xoogaystaan ay u socdaan haddaad fiiriso madaxweynayaashii aan soo marnay laga bilaabo 2000 ilaa haddeer laga soo gaaro madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen wahaabiyo kan ugu yarna wuxuu ahaa mid culimmadiisu ay wahaabiyo tahay. muuqaalkan kalena waxaa laga duubay nin magaciisa lagu sheegay Xuseen Cali Madow. waxa uu sheegayaa in dadka loo yaqaano wahaabiyada oo ula jeedo culimada ahlu sunnada iyo dadka raacsan aysan ka mid ahayn dadka galaya jannada. wallaahi billaahi tallaahi inaysan wahaabiyo janna galay nabi maxamed inaysan arkay annagu ilaahay baan ku xirana toos ku xirana nabi iyo midna marimayna waa dinka dhahaye ordaha ilaahay meel loo aado taqaana aad ordaha telefoon u dira dawka qaba ordaha la hadla oo Allah u dhaha dawka yeele. dhawaan kulan lagu qabtay Muqdisho ayay ka sheegeen in ay qorayaan maleeshiyad iyaga daacad u ah. waxaan rajaynayaa 2 bilood 3 bilood kadib 20 kun 30 kun oo qof oo abaabulan ummadana maxaan ku radaa indha u noqota in ay aad ka soo dhex xushaan dadkii waa dhooban yihiin oo idin joogaan inaad ka soo dhex xushaan. arrintaasi oo dadka falanqeeya amniga ay ka keeneen doodo kala duwan sida in xaaladda dalka ay ka sii dari karto haddii la hubeeyo qaar ka mid ah firqooyinka ka jira Soomaaliya iyadoo laga shidaal qaadanayo wadamo kala duwan oo ka tirsan caalamka sida waddanka Lubnaan oo ay ka jirto koox la magac baxday Xisbullah kuwaasi oo dowladda u yeeriya go'aanada iyagu doonayaan isla markaana ay ku caburinayaan bulshooyinka kale ee ka aragtiya duwan.